difaacidda caafimaadka maskaxdaada waxaa idiin soo gudbiyey isxilqaamayaal ka socda hay'adda America, Minnesota and Wisconsin. Waxaa soo saaray GlobeGlow Consulting and Researching. Ma isku aragtay hilmaam waayadan? Furayaashaada ma kaa lumayaan mar kasta? Mararka qaar ma raadisaa taleefankaaga, kadibna ma ku aragtaa gacantaada? Haddii ay jawaabtaadu haa tahay, haddaba waxaa la doonayaa inaad jirkaaga iyo maskaxdaadaba aad ilaalisid caafimaadkooda, aadna yaraysid khatarta hilmaamka. waxaad arrinkan ku suuragelin kartaa jimicsi iyo aalamiinto, cunidda raashin caafimaad leh oo dheellitiran, ka shaqaysiinta garaadka iyo dhexgalka bulshada. Baro 10 siyaabood oo aad maskaxdaada u jeclaan kartid aadna u yarayn kartid khatarta hilmaamka. 1. Dhidid iska keen. Samee jimicsiyo wadnahaaga ka shaqaysiiya, dhiiggana wareejiya si ay u gaarsiiyaan maskaxdaada iyo wadnahaaga. 2. Akhri buug. Daada aad doonta jir waxbarashadu waxay kaa caawinaysaa inuusan xusuus guur iyo dementia ama ilowsho kugu dhicin. Tusaale, ka qaybgal barnaamij waxbarasho. Bara af labaad sida af Ingiriis iyo wixii la mid ah. 3. Jooji cabitaanka sigaarka. Cilmi baarid la sameeyey ayaa sheegta in cabidda sigaarka ay sare u qaaddo khatarta xanuunka ilowshaha. Sigaarkoo la joojiyo wuxuu yarayn karaa halista cudurka markii loo barbar dhigo dadka aanan sigaarka cabin. 4. Qalbigaaga raaca. Miisaanka iska dhin, xadid dhiigkarkaaga iyo heerka sokortaada. Caddeymo la ogaaday ayaa sheegaya in xanuunada wadnaha iyo istaroogga iyo cayilka xad-dhaafka ah iyo sokortuba ay waxyeelo u geystaan caafimaadka maankaaga. Haddii aad wadnahaaga ilaalisid, maskaxdaaduna way ilaashanaan. 5. Madaxaaga kor u hay. Madaxaaga ka ilaali dhaawaca. Madaxa oo dhaawac uu kaa gaaro waxay sababi kartaa maankaaga oo wax noqda iyo maskax la'aan. Xusuusnow inaad xiratid suunka gaariga. Xiro koofiyadda baaskiilka marka aad kaxaynaysid baaskiil ama mooto, iskana ilaali kufidda markii aad guriga joogtid. 6. Cun raashin nafaqo leh. Cun raashin isku dheellitiran nafaqana leh, kuwaasoo ay ku yar yihiin sokorta iyo dufanka, una badan qudaar iyo miro si aad u yaraysid khatarta ilowshiyaha. 7. Hurdo hel. Hurdo la'aantu waxay keentaa dhibaatooyin xusuusta iyo fikirkaba la xiriira. 8. Ilaali caafimaadka dhimirka. Doon la talin dhakhtar haddii aad qabtid calaamadaha niyad jabka, walwalka ama wax ku saabsan xanuunada dhimirka. Sidoo kalena baro sida aad ula socon lahayd walbahaarkaaga amaba stresskaaga. Cilmi baaris la sameeyey ayaa waxay niyad jabka aan la daweyn la xiriiriyaan khatarta hoos u dhaca garashada. 9. Saaxiib yeelo. Dhexgalka bulshada waxaa la sheegaa inuu u roon yahay caafimaad qabka maskaxda. Tiigso arrimaha bulshada ee micnaha kuu sameeya adiga. 10. Maskaxdaada ka shaqaysii. Maskaxdaada tijaabi oo ka shaqaysii. Samee suugaan, wax dhis, quraan xifdi, xujo fur, samee wax maskaxdaada ka shaqaysiiya. Ka shaqaysiinta maskaxdu waxay leedahay faa'iidooyin soka iyo kuwa durugsanba.